lagu dhex jiro. Haddaba walaalayaal inta markaan ka imaado waxaan u imanayaa mowduuca ah cilaaqada aan la lahayn in wadanka Qatar iyo Kuwait iyo Khaliijka iyo sida ay xukuumadda Djibouti ula dhaqantay iyo xukuumadda Soomaaliya labada siyaasadood biseelka u kala dhaxeeya iyaan nitusaya. Horta marka hore waxaad ogtihiin in Soomaaliya lacag aad u fara badan loo bandhigay oo wafdiyaal waaweyn oo Khaliijka socdana ay tageen, laakiin mowqif ay ka qaateen sidan oo kale taa waxay dhahaan marka koobaad horta annagu waan baahannahay, waliba baahida aan baahannahay waa baahi culus, waa baahi ay dowladnimadeedii duntay. maca daalika waxaan qarar qaadanay inaan lacag qaadan oon walaalnimada ilaalino. mowqifkaa waxaa ammaanay aqoon-yahanka adduunka jooga oo dhan iyo ammaanay, aqoon-yahanka Soomaaliyeed oo dhan ba ammaanay. bal waxaan aad ugu farxay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya oo mowqifkaa iska taagay nafsil mowqif, sida Sheekh Shariif oo soo saaray bayaan aad u qurux badan oo 7 bundi leh oo ay ka mid tahay inuu ku garab joogo dowladda mowqifka dhexdhexaadnimo ay qadatay oo ah Qatar iyo Kuwait iyo Sacuudiguba inay yihiin 3 wadan oo walaal ah oo Carab ah oo Muslim ah oo in mida inoo wada jira inay yihiin oo inaan kala raacno aynan suubanayn, aynan wanaagsanayn, wax tarkana haddii la yiraahdana laguba kala horeeyaba. taas bay ahayd maaragtay ta ay qaadatay dowladda Soomaaliya oo u beerisay maaragtay wixii ay miisaankii dawliga ay adduunka ku lahaayeen u beerisay ku tustayna qaraarka dowladda Soomaaliya inay ku jirto gacanta Soomaaliya ayna ku jirin gacan dibadeed. wadanka Djibouti waxaa ka dhacday in maaragtay wafdi aan loo soo dirin laakiin telefoon loo soo diray, telefoonkii ay ku keentay inay safiirkii 10 saacadood kaga soo bax wadanka la dhahdo oo hoos loo dhigo diblomaasiyaddii Djibouti iyo Qatar u dhaxaysay. arinta si cilmiya looma diraasin maxaa yeelay arintaas waxa ay leedahay 3 arrimood oo halis ah oo siyaasiya. kow waxay leedahay dowladda Qatar dhinaca ciidanka Ethiopia, ciidanka Eritrea, ciidanka Djibouti oo isku horjooga xuduudda waxay keentay ciidanka la dhex fadhiya iyadaana noqotay dowladda inay heshiisiisa ahayd. arintaasi maxaa ka dhici doona la isma weydiin, waa arinta koowaad ee khaladka la galay. arinta labaad ee aan la isweydiin waxa weeye wadanka Qatar wuxuu leeyahay cilaaqaad caalamiya oo dawli ah, wuxuuna yahay dadka naajixa ku ah waxa loo yaqaano dagaalada in la dejiyo, in isaga la soo weeraro maaha. wadanada isweerarayoo dhan buu ka qayb galaa inuu dejiyo. Libnaan buu soo dejiyey, Afghanistan buu soo dejiyey, Soomaaliya imika gelaya shabaab iyo maaragtay Soomaaliya, Djibouti wuxuu dhex galay Eritrea, Ethiopia iyo Eritrea uu dhex galay, wuxuu kala dhex galay maxaan ku dhahdaa Pakistan iyo Hindiya, wuxuu kala dhex galay wadanada ku yaala America maaragtay koonfurta Mareykanka ku yaala qaaradda America. waxaas oo dhan buu galay. waa dowlad indho dheer ku haysata dejinta siyaasaadka, waxaana lagu kalsoonaa in aynan dowladda Sacuudiga iyo dowladda Imaaraadka iyo kuwa raacay oo dhan inaynan ku guuleysanayn tallaabada ay qaadeen, xataa dowlado waaweyn ha ka dambeeyaan. maxaa yeelay waxay leedahay saaxiibo waaweyn oo dowlado ah oo arintaa fashilin doona. marka arintaa lama fiirsan. arinta saddexaad ay dowladda Djibouti ayna ka fiirsan waxa weeyaan inay dowladda Qatar ay noqotay dowlad leh quwa naacima, waxa loo yaqaano quwadaha yar ee dadka ta'siiriya, jasiiraha noqoto amba gargaarka ay bixinaysa ha noqoto, saaxiibada caalamka ay ku leedahay ha noqoto. waa dowlad shucuubta la saaxiiba, maxaa yeelay waxa israacisay waxa loo yaqaan isbedel doonka iyo xurriyadda iyo dimuqraadiyadda iyo cadaaladda. shucuubta adduunka oo dhan baa la jirta. marka dowladda Djibouti waxaas oo dhan iyadoo aan fiirin iyay cilaaqadii u goysay. arinta maanta maxay keentay durbaba waxay keentay inay dowladdii Qatari kala baxdo wadankeena ciidamadii u fadhiyay. arintaasi kadib maxaa ka dhashay dowladdii Eritrea inay ku soo xuduudii ku soo durugto oo ay imato xuduudii dhulkeenu meeshii aan lahayn ee wali aan loo kala saarin inay yimaadaan, bal inay ka soo durkaan baa suurtagala. arintaasi waxay keentay in annakoo ciidankeena intii ugu culusayd ee ugu ciidanka maaragtay ugu xooga badnayd ee faar loo yaqaanay ay fadhiyaan wadanka Soomaaliya oo nabadda ay maaragtay u tageen, in ay halkaasi keento in ciidamo yar anuguna ciidanka aan leenahay in ciidamadii laga saaro caasimadda, police iyo military gendarme la qaado oo la geeyo gobolkaas aan isku haysano Eritrea. in mashaakil dhaqaale oo aan qaadi karin ay nagu soo biiraan, mashaakil siyaasadeed oo aan qaadi karin nagu soo biiraan. arintaa ma eegin. arin kale jirto oo maanta Djibouti adduunka u baahan maaha in adigu u baahan tahay. wuxuu oran karayay dowladdu waxay oran karaysay wadanka Imaaraadka iyo Sacuudiga anuu ma goynaya Qatar waxba. annaka uma baahni maanta Sacuudiga iyo Imaaraadka.
iyaka inoo baahan, iyaka inaga dhulka nasiya maanta meel aan ciidan fadhiisano, iyaka ku jira dagaal international, iyaka ku jira dagaal iqliimiyo maaragtay gobolka ah, iyaka ayaa doonayo iska takhalusaya carabtu. marka adiga ma aha kii u baahnaa ee waxa ahayn iyaka ku baahnaa. sida uu yidhi Sheekh Shariif, carab ninka daba nashleeya wax ma siiyaan ee ninkii isku soo taagay wax u taraan. saa daraadeed baa ogtahay maanta wafdiyaasha sida ay ugu imanayaan magaalada caasimadda Muqdisho ee loogu baratamaya tallaabada ay xukuumadda Soomaaliya ay qaaday. adiguna marka ugu horeysa telefoon lagu soo diraba waxaa tiri haye maxaa yeelay dee nin tukaan fadhiyo caraab oo dilaala kolba kiida wax badan siiyo buu ka qaadanaya, macno kale uu leeyahay ma jirto. marka khaladada intaa leeg ayaa ka dhacday meeshaasi. maanta waxaa la leeyahay dagaalkii qatar lagu hayay marka lagu eego cilmiga political science-ka waxaa ku guuleysatay qatar. maxaa yeelay waxaa fashiliyey Jarmalkii, waxaa fashiliyey Shiinihii, waxaa fashiliyey Ruushkii, waxaa fashiliyey Faransiiskii, waxaa fashiliyey Beljigii, waxaa fashiliyey dowladihii Scandinavigii, waxaa fashiliyey Afrika. gobolka aan ka tirsanay anagu Djibouti ka mid tahay, Soomaaliya way diiday, Ethiopia dhadhaxaad bay noqotay, Suudaan dhadhaxaad bay noqotay, Kenya dhadhaxaad bay ka noqotay. marka waxa weeyaan xataa koonfurta Suudaan arinta dhadhaxaad bay ka noqotay, wadanka quraata ee raacay Djibouti bay noqotay. marka xataa igaadkii yaa ka dhex baxnay. waxaan kaloon ka dhex baxnay Afrika oo dhan. Afrika dhowr wadan baa u yeedhay oo mowqifkeena qaatay, intii kaleeto dhan way diideen. wadanadii carabta oo dhan waxaan Masar ahayn iyo maaragtay Khaftar maaha Liibiya ma xukumo, waa nin weeyaan, iyo maaragtay Yaman ninka xukumo meesha fadhiyo wadanka aanan u fadhino de Sacuudigu mishaar siiyo mooyaane wax kaloo qarar ka qaata ma jiro. maqribkii oo dhan Mauritania marka laga reebo way diideen, Maroc, Algeria, Tunisia, wadanadii culusaa oo dhan way diideen. wadanadii kale ee carabtaha maaragtay xataa khaliijka ku yaallay Kuwait oo dowlad dimuqraadi culus way diiday, saldanatu Cumaan way diiday. waxaad ogtihiin isbedel baa dhacay marka Turkiga oo ciidan keenay, raashinkii la soo gaadhay, Iiraan baa keentay raashinkii, isbedel siyaasadeed baa mandiqadii ka dhacday. marka isbedelkaas siyaasadeed maxaawirtaas diraysa annagu kamid ma ahayn, laakiin waxaan dowlad dhaxaad ku faantaan ahayn. wixii oo dhan qaladadaas dhacay. marka qaladadaas waxa u baahan ikhwaani fillah in ay dowladda Djibouti hadday gudaha ku khaldamaysana waxaa ka sii daray inay dibadda ku khaldamayso. waxa weeyaan cadow badan bay wadankeena u sameynaysaa, waxay u soo jiidanaysaa indho fara badan. waxaad ogtihiin meeshan la yidhaahdo mujamaca la yidhaahdo ee ay ku faanto dowladda Djibouti ee Kuwait baa dhisay la yidhaahdo, xaqiiqada inay sheegayaa anu waan ogahay. Kuwait waxaa ka dhisay jimciyadda dhista Kuwait ku taala, laakiin dadka dhisay waa reer Qatar. meeshaas oo qurux badan ee dhakhtar kale ee waxaa leh dumar reer Qatar ayaa dhisay, dumar la yaqaano oo magacadoodana ay soo dhigi doono maalinta dambe. magacadooda waa dumar la yaqaano oo reer Qatar oo tujaar ah ayaa meesha dhisay aan fadhino ee wadankeena lagu faano ee aqoonta lagu hayo kumaanka qofa. markaas waxa weeyaan taabay dhistay, waxa weeyaan jimciyad baa hoos bay Qatar al-khayr raado. waxaad ogtihiin cilaaqaadka ay dowladdu la lahayd ee dhinaca amniga iyo siyaasadda oo heer sare iyaduna maraysay. waxaas oo dhan waxaa lagu dumiyey qaraar yar oo macno uu leeyahay ayna jirin. karti baan u lahayn inaan Sacuudiyana saaxiib lahaano, Qatarna la saaxiib ahaano, Kuwaitna la saaxiib ahaano, carabtana oo dhan la saaxiib ahaano. maxaa yeelay annaka waxay noo yihiin wax qudhatay. annaka shalay toole imaaraadku cilaaqada noo jartay oo ay naga joojisay inaan Dubai tagno, umaan baahnaan badiil kale aan heli karaynay. dagaalkuna waxaa ka mid ah waxa Dubai la cabaadaysa wax weeyaan waxaa la furayaa maaragtay boor amba dikad la yidhaahdo Xamed ad-Dawli oo la baratami doona Dubai ad-Dawli. marka dagaal dhaqaalo siyaasadeed wadanadii ku dhex jiraan iyaan annaka maaragtay halna aan ku lahayn, geelna aan ku lahayn, awrna aan ku lahayn ayaan dhex dabaalanaa. wax dhibaato oo naga soo gaadho maahane, wax wanaag oo naga soo gaadhayna ma jiro. marka waxay u baahan tahay marka siyaasadda qaranka la qaadanayo saddexdii shay aan soo sheegay kuma celinayo. Ramadaan Kariim, Ramadaan Mubaarak, taqabbal Allahu minna minkum saalih al-a'maal. waxay noogu xigi doona xalaqadii ahayd maaragtay aan kaga hadlaynay 27 Juun oo maalin dhow ina suga. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.